ninkan wuxuu la baxay Somali Cowboy taban asaga ayaa la baxay magac asaga kulli hadda uu hore u laamaan waa magac uu la baxay hadii taariikhda casriga uu jaajuus jiro oo Soomaali ah waliba Mareykanka ku nool waa asaga taban waxa isa soo darayo warbixinada la helayo oo ah inuu bayahayba qofka ay isticmaalaan xaq jirinta cadaanka ah Soomaalida bartilmaameedka xukunku haayo maalmahan iyo sanadahan dambaba dalka Mareykanka dabcan wuxuu iska dhigaa nin balaayo ah oo aad moodo nin wax bartay laakiin waa nin doqon oo cadaanku way u dhaxmaraan inay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan waayadii ugu dambeeyay waxa aad uga hadli jiray laba nin oo activistiyaal ama journalistiyaal qaarkood yihiin oo Mareykanka ku nool oo niman aad u wanaagsan oo ka digi jiray halistiisa balse hadda 24 saac la soo dhaaf moodaa in Soomaalidu wajigiisa labaad oo halista oo bulshada uu ku dhaxaayo inay ku baraarugday walow iska dhigi jiray nin wadani ah oo Soomaalida u soo bandhiga waxyaabaha dalka ka socda iyo waxyaabo noocaas laakiin waxa soo dhan been ay noqotay hadda kadibna waxa lagu qasbanaan doonaa in laga foojignaado maadaama uu yahay two face man macnaheedu waa nin laba waji leh waji u qarsan oo halis ayaa jiro marka waa maasantiin saaxiibayaal